urweynaha tale iyo tusma ay ku midaysan yihiin aqoon-yahanada Soomaaliyeed ku kala nool daafaha caalamka ayaa shirkadda Dahabshiil Group ku maamusay shahaado sharaf ay sheegeen inay ku mutaysatay u gargaarista dadyooga ay masiibooyinku haleelaan sida abaaraha daadadka iyo duufaanada. Waxaana munaasabadaas lagu qabtay Hotel Istanbul ee magaalada Ceergaba iyo waxa soo qaban qaabiyey aqoon-yahan Maxamed Siciid Xaaji Cabdilaahi. waxaana munaasabadaas ay ka soo qayb galeen madax dhaqameed aqoon-yahano iyo waliba madaxda shirkadda Somtel ayaa waxa ugu horeyntii munaasabadaasi faahfaahin ka bixiyey gudoomiyaha ururka tale iyo tusme ee gobolka Sanaaga aqoon-yahan Maxamed Siciid. marka ururkani maanta waxa uu mahadnaqayaa shirkadda Dahabshiil oo runtii ahayd sulusul qarnigii u dambeeyay ama 30 sano u dambeeyay Soomaaliga ugu waxtarka badan ummadda Soomaaliyeed hadday tahay xilliyada ay imaadaan aafooyinka abaaraha maxaan ku raxdaayay dhibaatada maaragtay daadadka duufaanada hadday tahay horumarinta diinteena oo uu qayb weyn ka qaatay masaajidda dhisidooda iyo sidoo kale musaabaqada quraanka oo runtii 25 sano u dambeeyay oo soo xiriira u waday sidoo kale wuxuu ka qayb qaataa shaqagelinta ummadda Soomaaliyeed gees to gees waxyaabaha ugu waaweyn ee maanta isna ku helaya maanta waxa kamid ah inuu yahay amaanahayaha ugu muhiimsan Soomaali oo 30 sanadood ee u dambeeyay si weyn u soo shaqeynayay isaga oo lacagta u soo gaarsiinayay siyaabo kala duwan oo ay kamid tahay inuu xilliyada qaar ay ku qaadaan dad lugaynaya buuraha hoostooda ku geeyaan arintaasi Soomaali waxaan oran karnaa shirkadani waxay ugu jirtaa Soomaalida halka webiga Niil uu ugu jiro shacabka Masaarida halbowle dhaqaale runtii in la ilaashado iyada iyo qeyrkeedba ayay maanta mudan tahay waxyaabaha uu qabtay waxa kamid ah arinta la yiraahdo arinta abaaraha 2011kii arinta maskaxda ururkayga runtii ku soo noqnoqota in badan uu ilaawayo waxa kamid ah xilliba waxa dhacday abaar adduunka warbaahintiisa ayaa isbarbar dhigtay ganacsiyada Soomaaliyeed iyo konton dawladood marka kontonkii dawlad dadkii Soomaalida bariga way hadleen qayb kamid ah waxay yiraahdeen Ilaahay baa mahad leh aan suuqaaya darin dawlad la'aan iyo Dahabshiil la'aan. waxayuna kaalinta shirkadda Dahabshiil Group ay kaga jirto horumarinta dalka dhinacooda bogaadiyey qaar kamid ah madax dhaqameedka waayeelka waxgaradka gobolka Sanaaga iyagoo Xaaji Maxamed Siciidna ka codsaday inuu ka qayb qaato horumarinta gobolka. abaalmarinta inuu waajib u leeyahay waanu la qabnaa wuuna mutaystay sida ay ururkaas u arkeen ayaanu anuna ka waayeelahaan annagoo matalayna bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waxaanu leeyahay abaalmarinta wuu mutaystay. xafladan loogu mahad celinayo shirkadda weyn ee Dahabshiil waxaanu leenahay Ilaahay ha u barakeeyo maalkeeda Ilaahay ha ka jaalisiyo abaalgudka ay siiso ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtoba. ururkan tusmo xafladan soo abaabulay ugu mahadnaqaya waxqabadka shirkadda Dahabshiil annaguna waa ku raacsanahay waa ku hambalyeynayna shahaadooyinkan ay u soo bandhigtayna haddii aanu madax dhaqameedka nahay waa u gudoomaynaa. waxaanu leenahay ururka talo iyo tusmo aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad arrintii ay soo jeedeen waanu ku garab taaganahay waanu ku raacsanahay waxaanu Ilaahay ha u barakeeyo halkaan halka socdo. aad baan mahad u celinayaa Dahabshiil shirkadana waa shirkad caalami adduunka dhan bay ka furtay bunuug oo furuuc لخدمة الإنسان Soomaali ha ahaado ama qof kale ha ahaado shirkaddan staff fiican bay leedahay. waxaan u mahadnaqaynaa maartay shirkadda tan talo iyo tusmo ee arrintan maanta halkan soo qaban qaabisay waxa weeye shirkaddani dee waa sidaa looga soo sheekeeyey waa shirkad caama oo la yaqaano ummadda oo dhan baa hantideedii ay taallaa taayadii baa taalla waa lagu kalsoon yahay meel kastaba maartay waxa weeye kalsooni buuxda oo buuraa baan ku qabnaa waana u ducaynaynaa waxaan leenahay maartay halkaa ka sii kordhi. ururka tayo iyo tusmo shahaado la guddoonsiinayo Xaaji Maxamed Siciid Ducaale Dahabshiil waxaanu leenahay hambaliyo marka labaad waxaan leenahay xaajigii maanta mar haddii Ceergaabo annagoo ah dhaqankiisii oo suldaankii guud ee beesha Ibraahim Sheekh ahay Suldaan Cali Suldaan Maxamuud Cabdi waxaanu leenahay xaaji maanta waxaan maleeyahay inay hawshaasu Ceergaabana u soo jeesatay
oo dadkana waxaad qabatay waxyaabo badan baad dhulka ka qabatay aad iyo aad baanu kaaga mahadnaqaynaa haddaanu gobolkii awowayaasha nahayna waxaanu leenahay dee xaaji u soo jeeso gobolkii sanaagna waa ku sugayaa iyadoo maanta halka ay ka taagay calaamadii shirkadda oo aragtaan oo idiin muuqdaan dhammaantood waxaan leenahay qoladan aad iyo aad baan u hambalyaynaynaa maxamed hogaaminayo isla markaana mulkiilaha hoteelka weyn ee Istanbul maanta xafladan qiimaha leh halka uu ku qabtay aad iyo aad baan anaguna ugu mahadcelinayna waxaan leenahay xaajiga mahadnaqa shirkaddu soo jeedisay waa la qabnaa sidaas si leeg baan anaguna ugu mahadnaqaynaa waxqabadka ballaaran ee aad ummadda Soomaaliya meel kasta joogto aad gelisay iyo ganacsiga ballaaran ee aad ka fulisay dalka gaar ahaan Somaliland iyo waxaad ka qabatayba waa kugu mahadnaqaynaa wax ishu qarinaysana maaha waxaana halkaasi hadalla mahadcelin iyo dhiirigelin isugu jirta halkaasi ka soo kala jeediyey Siciid Maxamed Cabdalla Cadceed oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Samtel ee gobolka Sanaag waxaan maxay ahayd u mahadnaqaynaa waan bogaadinaynaa marday garteen ururka garteen in wanaagga uu leeyahay iyo muxuu ahaa waxqabadka Dahabshiil Group iyagoo mahadnaqaya xaajiga Maxamed Siciid waxay muujinaysaa in reer Sanaag ay yihiin dadka maxay ahayd ugu wanaagsan dadka maxay ahayd garta cidda wax qabanaysa cidda maxay ahayd dadka bulshada wax ku soo kordhisay sidoo waxay halka ka tilmaamayeen in Dahabshiil iyo dawlad la'aan ilaahay muxuu isma raacsin marka run ahaantii waxay muujinaysaa ururka Talo Tusmo inay garanayaan oo muujinayaan waxqabadka Dahabshiil waxaan ugu dambeyntii aqoonyahan Maxamed Siciid Xaaji Cabdilaahi oo halkaasi shahaadadii ugu talagalay Dahabshiil Group uu ku guddoonsiiyey qaar ka mid ah madax dhaqameedka oo wakiil u ahaa shirkadda Dahabshiil Group Cali Aadan Daahir TV-ga caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo